الله الرحمن الرحيم جامعة أرمس oo ka hawl galeysay 17 sanadood u dambeeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland una heelan inay dadkeeda ama bulshadeeda u soo gudbiso waxbarasho tayadeedu ay sareyso cilmi baaris iyo horumarinta bulshada jaamacadda waxa lagu marti qaaday oo ay ka qayb qaadan doontaa shirka dhaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka qabsami doona bishan aan ku jirno 14keeda iyo 15keeda 2023 cilmi baarista topiga ama title-keedu yahay ama ciwaankeedu yahay financial sector financial products and diversification challenges and opportunities oo ka hadli doona dadku inay helaan habab kala duwan oo ay adduunkooda ku maamushaan kuna maalgashadaan hadda ay noo jiraan salahan account-yo in dadku mobile money isticmaalaan sida zaadkii dahabkii waxyaabaha noocaas kale ay ka mid yihiin kuwa kale oo badan oo kala duwan ay ku jiri doonaan wixii halka ka soo baxa shirka waxa laga hadli doonaa topic-yo aad u fara badan oo kala duwan waxa ka soo baxana waxa ka faa'iideysan doona hadii eebayd insha Allah financial institutions ka sida bangiyada ay ka mid yihiin iyo ganacsatada iyo muxuu ahaa bulshada guud ahaanba way ka faa'iideysan doonaan si ay aan ugu diyaar garowno isbedelka faraha badan leh mustaqbalka dhow ku dhici doona area-dan aan ka hadlayno xagga dhaqaalaha iyo lacagaha ay ka mid yihiin waxaan rajaynaynaa jaamacaddu dhiirigelinaysaa in shirarka noocan oo kale ah aad loo badiyo waxa kale oo aad uga faa'iideysan doona dadka siyaasadda dhaqaalaha dalka dejiya ay ka mid yihiin salahan wasaaradda maaliyadda oo kale ay ka mid tahay iyo cid kasta oo kale oo saameyn ku leh waxaan mar labaad aad u dhiirigelinaynaa shirarka noocan oo kale ah in aad loo dhiirigeliyo lana badiyo